waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي كسو هذا برنامج كيني وحبرشدة فوقان درسيقة وزارة وحبرشدة إدها هي تعليم تسريع أرضي وحان قادنين مادة حسابتا فصلك فوم 2 إدكسيقة سريع أرضي وحان كجرنا جبتر 1 real numbers مانتا وحان قادن دون أرضي 10 كيني سدحات terminating and repeating decimals أرضي 10 كي كان كوري لبات كي كسي هوريبا waxaa ku soo baranay tirooyinka rational numberska kuwa ay yihiin sida loo qoro iyo sidoo kale rational numberskaas sidee ugu muujin karnaa xariiqa tirooyinka ama number line ka dushiisa marka waxaa baran doonaa arday terminating and repeating decimalska ama kuwa soo laalaabta maxay yihiin marka arday gabagabada cashirkan arday walba wuxuu awood u yeelan doonaa inuu qori karo terminating ama repeating decimal isagoo adeegsanaya qorista saxda ah ee loogu talagalay arday marka meeshaan wuxuu buug ka bilaabanay xasuusin marka waxaa lagu dhaar arday remember waxaa xasuusataa that the fractionka ama jajabku is another way of writing inuu yahay hab kale oo loo qoro division of one quantity by another qaybinta hal tiro loo qaybinayo tiro kale any fraction marka arday fraction walba oo natural numbers ah can be expressed as waxaa lagu muujin karaa decimal ahaan by dividing ayadoo loo qaybinayo the numerator sareeyaha by the denominator ayadoo sareeyaha loo qaybinayo hooseeyaha ayaan u qori karnaa markaa decimal ahaan arday waxaa noogu horeeya markaa tusaalahana koowaad arday waxaana la dhahay show that waxaana tusaa 3 loo qaybiyey 8 iyo 7 loo qaybiyey 12 in labadoodaba loo qori karo decimal ahaan maxaa yeelay hore waxaa usoo sheegnay rational numberska in loo qori karo fraction ahaan oo ah laba tiro oo lisu qaybiyey hooseeyahoodana uusan ahayn 0 decimalka markaa muxuu noqon karaa waxaana la decimal waxaa u qori kartaa keliya markaa sareeyaha u qaybiso hooseeyaha maxaa sameynaynaa markaa arday qaybintii caadiga ahayd ayaan adeegsanaynaa oo waxaa dhahaynaa arday waxay noo noqonaysaa 3 loo qaybiyey 8 waxaa u qori karnaa 3 loo qaybiyey 8 waxaana adeegsan karnaa qaabka qaybinta oo ahayd inaan 3 u qaybino 8 laakiinse aan buuxsanna meeshaan oo aan dhahno 3.000 si qaybinta inoogu fududaato marka arday meeshaan waxaan dhahaynaa 0. meeshaas waa meesha eberyadan ay nooga imaadeen marka waxaan dhahaynaa saan u qorto marka arday waxaa haysanaa 3 soo maaha dhibic eber marka waxaa ragnaa 8 inaan soo helno maxaan sameynaynaa marka arday waxaa dhahaynaa tiro marka 8 lagu dhufto noo soo dhaweyn karto 30 waxay noqonaysaa maxaa yeelay boontiga hadda ma fiirinayno caadi ah wada xalinaynaa marka tirada noogu soo dhaw maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa 3 ku dhufo 8 waa 24 30 marka 24 ugu soo dhaw soo maaha marka 24 aa qorano kala jarna marka waxaa noo soo haraya 30 marka 24 ka jirtid waxaa noo soo hari doona soo maaha 60 marka arday waxaa dhahaynaa tirada ugu dhow ee aan ku dhufan karo 8 oo 60 ii dhaweynaysa maxay noqonaysaa marka waxaan dhahaynaa marka arday 7 marka ku dhufan 8 maxay noo noqonaysaa waxay noo noqonay 56 marka arday 56 u dhowdahay 60 soo maaha kala jarno 60 56 ka jar marka 60 marka 56 ka jarno maxaa noo soo hiray 4 ibartan soo dejisano 40 inoo noqonaysaa 40ka marka aa haysto waxaa raadinaa tiro markaa ku dhufto 8 40 isiin karta ama u dhow waaba jirtaa soo maaha maxaa yeelay 5 ku dhufo 8 maxay noo noqonaysaa 5 8 ku dhufo waa 40 ka jar waa eber marka remainder meesha nooguma soo harin waxaa dhahaynaa marka 3 loo qaybiyey 8 waxay noqotay 0.375 arday marka sida tirooyinka 0.375 ee aan reminder ka yeelanaynin ama aan haraadiga yeelan doonin waxaa dhahaynaa
waa kuwa la dhaho terminating decimals oo ciwaankeena ahaa terminating iyo repeating. kuwa saan oo kale ah marka maxaa dhahaynaa waxaa la dhahaa terminating. qaybta labaad waxay noo tahay soo ma arday 7 la hoos dhigay 12 dhahno markaa solution markaa dhahno 7 loo qeybiyo 12 caadi u qorano markaa arday 7 loo qeybiyo 12 waxaa u qori karnaa 7 divided by 12 soo maaha haye u qorno markaa tiro caadiga ah koreyaha waxaa u qeybinaynaa hooseeyaha waxaa dhahaynaa 7 u qeybino 12 waxaan sameynaynaa marka arday marka si aad 7 ku qeybino 12 waxaa u baahanahay tiro marka 12 lagu dhufto 7 siinaysa ma jirto marka 0 point saarano inta ebridaas keensano marka waxaa dhahaynaa tirada ugu soo dhow ee marka 12 ku dhufto 70 siinaysa maxay tahay waxaa dhahaynaa waxa ugu dhow 5 maxaa yeelay 5 hadaa ku dhufano 12 waxayna siinaysaa 60 marka ku soo dhufano 5 arday 52 ku dhufo waxay noo noqonaysaa 60 kala jar marka 60 marka 70 marka ka jirno 60 waxaa noo soo haraaya 10 soo maaha eberta kala soo deji waa 100 hadana arday waxaa dhahaynaa markii tiro lagu dhufto 12 oo noo dhaweynaysa 100 maxay noqonaysaa marka waxaa ku dhufanaynaa arday 8 marka 8 ku dhufano waa 96 waxaa dhahaynaa marka 100 laga jaray 96 100 marka ka jirto 96 maxay noqonaysaa waa 4 marka waxaa soo degsanaynaa ebertii waxay noo noqonaysaa soo maaha 40 si 40 marka tiro ugu dhow helno maxaa ku dhufanaynaa wax lagu dhuftay 12 oo nu siinaya 40 ma jiraan maya tirada ugu soo dhow waxay noqonaysaa 36 marka maxaa ku dhufanaynaa 12 saddexa ku dhufano 36 inta keensano marka 46 ka jarno maxaa noo soo haraaya hadana waxaa noo soo haraaya 4 eber soo degso mar kale waxaa ku qasbanaa tiro u dhow 40 inaan helno sooma waana 36 marka saddexa ku dhufano 3 marka ku dhufatid hadana waxay ku noqonaysaa 36 maxaa ku soo haraaya hadana 4 dheh hadana maanta dhan waxaa soo laalaaban doono marka mar walba waxaa ku soo laalaaban doono saddexdaas marka waxaa dhahaynaa 7 divided by 12 waxay la eg tahay 0.583 oo soo laalaabanaysa tirada saan oo kale u soo laalaabatay saddex oo kale waxaa dhahnaa waxaa waaye recurring ama repeating decimal waa tirada decimalka ee soo laalaabata sababtan waxay tahay mar walba waxay leedahay haraadi marka arday waxaana la dhahay the fractionka ama jajabka rational numberka waxaa loo qori karaa decimalka tusaale ahaan 0.375 soo maaha 0.375 decimalka saan oo kale waxaa lagu magacaabaa terminating decimal waa decimal terminating oo dhamaanay malahan haraam malahan marka qaybisid haraamku malaha sababtu maxay tahay because the division maxaa yeelay qaybintiisa waxay ku dhamaanaysaa ama ay ku go'aysaa marka reminderkiisa uu noqdo 0 oo marka haraadiga ama qaybta ugu dambaysa marka isku qaybinaan waxaa noo soo bixi doono 0 oo tiro haraadi ma yeelan doono sidoo kale arday waxaa lagu dhahay the fraction tirada fractionka ama jajabka can be expressed as the decimal ee lagu muujiyay tusaale ahaan 0.583333 example-keena ugu dambeeyay tusaale ahaan digitkan ama godka 3 wuu soo laalaabto soo maaha and the division does not terminate sidoo kale qaybintiina ma aysan dhamaanin ama ma isku go'in oo reminderkiisa muusan noqonin 0 waxaa soo baxaysa mar walba tiro caadi saas darteed decimalka 0.583333 oo soo laalaabanaysa oo kale waxaa lagu magacaabaa repeating ama recurring decimal waxaa lagu magacaabaa decimalka soo laalaabta ama dib u soo dhaca hadana marka arday waxaa lagu dhahay to show si aad u muujisid a repeating digit soo laalaabanaya ama block of repeating digits in a repeating decimal number ee ku jira tiro soo laalaabanaysa ee ku jirta decimal number repeating
waxaa dhigaynaa marka a bar above the repeating digits. waxaa ku sawiraynaa ama ku qoraynaa xariiq ayaan korkeeda ku sameynaynaa. tusaale ahaan 0.58333 waxaa u qori karnaa marka 0.583 oo xariiqaas ayaan korka ka saaraynaa 3 maadaama ayada soo laalaabanayso. sidoo kale arday 0.0818181 maadaama sideed hal ay soo laalaabanayso ayadana waxaan u qori karnaa 0.81 qaabkaas oo kale ama xariiqaas ayaan korka ka saaraynaa si loo arko inay tahay repeating decimal. This method of writing habka markaa u qorayna arday oo repeating decimal qaabkan oo kale u qorayna waxaa loo yaqaanaa bar notation. Bar notation. In general markaa si guud ahaan any rational number tiro kasta oo rational number ah tusaale ahaan b divided by q waxaa u muujin karnaa decimal ahaan anagoo u qaybinayna numeratorka b sareeyaha b tirada ah haysta sareeyaha ku ah adoo u qaybinaya hooseeyaha oo aan ahayn hooseeyaha 0. fiirina marka arday meesha waxaa ku haysanaa example 2. arday example 2 waxaa lagu dhahaa express muuji decimaliska soo socda fraction ahaan simplest form adoo u qoraya habka ugu sahlan. marka arday maxaa sameynaynaa waxaa haysanaa 0.85 waxaa rabnaa inaan u qorno habka ugu sahlan fraction ahaana aan u bedelno. marka aan dhahno solution 0.85 arday si aan ugu bedelno fraction ahaan marka hore waa inaan meesha ka bixinaa decimal pointiga. see ugu bixinaynaa marka waxaa dhahaynaa 0.85 waxaa ku dhufanaynaa 100 loo qaybiyey 100. marka arday 0.85 aa ku dhufato 100 maadaama 100 ay ka kooban tahay markaa laba eber maxay noo noqonaysaa halkan ay imaan doontaa pointigu ka soo baxaa kor waxaa noogu haraya markaa 0.85 markaa ku dhufatid 100 0.85 markaa ku dhufato 100 oo loo qaybiyey 100 ay noo noqonaysaa soo maaha. waxaa kor noogu hari doono 85 la hoos dhigay 100. hadda fraction waa u bedelnay laakiin waxaana la simplest form qor habka ugu sahlan qor 0.85 markaa fraction u bedeshay. marka maxaa u qaybinaa tiro 85 u qaybsanta oo 100 u qaybsanta maxay noo noqonaysaa 5 soo maaha. okay meel kasta 5 u qaybino 85 markaa 5 u qaybis maxay noo noqonaysaa 17. 100 markaa 5 u qaybino maxay noo noqonaysaa 20. marka meesha waxaa noogu soo baxay 17 loo qaybiyey 20 inay tahay. arday marka la fiiri kan ku xigta 1.3456 lagu siisaa maaha. marka kor iyo hoosba waxaa ku dhufataa 10,000 oo loo qaybiyo 10,000 ku dhufo. marka tiro caadi ayaa kuu soo bixi doonta oo fraction ah isu qaybi. kan ugu dambeeya fiiri arday oo ah 0.5 soo maaha oo laakiin 5 waxaa noo kor saaran calaamadii bar notationka oo waxay u qoran tahay sida 0.5 simplest form qoraa lagu dhahay. waxaa dhahaynaa marka fraction ahaan markaa u qorin qaabkee u sameynaynaa waxaa dhahaynaa tirada 0.5555 oo soo laalaabanayso maxay noqonaysaa. waxaa dhihi karnaa 0.5 oo soo laalaabanaya waxaana siin karaa 5 la hoos dhigay 9. qaabkaas oo kale ayaan arday u qori karnaa. arday buug waxa uu noo qorayaa page 11 ilaa 12 waxaa noogu qoran 5 su'aalood. 5taas su'aaloodba waxay la xiriiraan cashirkii hadda aan qaadanay. waxaan filaa markaa arday inaad ka soo jawaabi doontaan. arday halkaa waxaa noogu dhamaada markaa cashirkeennii. waxaan nahay wahdiga dugsiyada